dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala horta fadiilad uu siiyey aanu ragga siinin marka islaamka ay timaado taasoo ah gabadhii ugu horraysay qofkii ugu horreeyey muslimay ee kalimati tawxiid ku dhawaaqay marka nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam laga yimaado dee ruux dumaru ayuu ah oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam risaaladii markii loo soo dhiibay uu xambaaray dee qofkii la qaaday wuxuu ahaa khadiija radia allahu canha nebiga sala allahu calayhi wasallam markuu asagoo naxsan oo gariiraya uu soo cararay gurigiisii buu yimi umuu baydhin xamsa binu cabdilmuطalib oo lagu yaqaanay inuu yahay nin geesi oo ugaadhsada libaaxyada umuu tegin abu aalib oo ah adeerkii oo loo yaqaano inuu yahay caaqilkii iyo dee sultaankii magaalada laakiin nebigu sala allahu calayhi wasallam waxaa la yidhi markay mu'arikhiintu ka hadlayaan khadiija ayuu u soo cararay sidii ilmo yar dhabta ayuu markaa kaga jiibsan isagoo argagaxsan oo naxsan